السلام عليكم صاحبيال وصباح إسنينا أفرت بشة تدباد لبضو كوني لباتني لبضا كسو دوادا قضبضا وراركينا وغدور كرون وحانا كمدا مدحويناها دولة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود oo ka degay Turkiga qaab noocee ayaa loo soo dhaweeyay muxuu Turkiga uga goleeyay arintani warkeena ayaad ku maqli doontaan iyo ra'iisul wasaare Xamse oo soo saaray wareegtooyin uu ku magacaabay xilal badan caasimada Denmark ee Copenhagen oo laga fuliyay dilal toogasho ciidamada Ingiriiska oo laga jabsaday YouTube-ki iyo Twitter-ki haatan u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan قامت بالاستماع إلى القاعدة التركية في الصومال مثلا. هناك تسجيلات ولدينا وثائق تثبت أن مثلا مصر قامت بهذا الأمر والاستماع للقاعدة العسكرية التركية في الصومال. daawadayaal sida aad ku daawateen xogta ugu horeysay warkeena in dawladda Masar ay jaajustay xirada danka Turkiga uu ku tababaro ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halkaas ay kala baxday danaha Turkiga ee Soomaaliya iyo xogo kale badan Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka degay dhankaas iyo Turkiga halkaas oo lagu soo dhaweeyay si hab maamuskeedu uu hooseeyo dawladda Turkiga ayaa la sheegayaa inay aad uga careysan tahay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ku casumay magaalada Muqdisho sirdoonka Masar ayaa markay magaalada Muqdisho yimaadeen iska dhigay rag booqasho rasmi ah u yimi iyo salaam madaxweynaha laakiin ay ku dhaqaaqeen fal argagax geliyay ciidamada Turkiga ee ku dhaqan magaalada Muqdisho halkaas ay ku basaaseen xirada Turkiga ku tababaro ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho sirdoonka Masar ayaa qaatay xogo badan oo ah damaca Turkiga ee Soomaaliya arrintan ayaa keentay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu kala kulmo cadaadis badan ee dhanka Turkiga booqashada rasmiga ah ee madaxweynaha Soomaaliya ee Turkiga ayaa la sheegay in loogu yeeray wada hadal ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya iyo xaaladda cusub ay Turkigu kala kulmeen xirada ay ku tababaraan ciidamada dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu arrintan uga garaabo Turkiga lana filayaa inuu raali gelin ka bixiyo maadaama uu Turkigu ka mid yahay wadanada ugu waaweyn ee Soomaaliya taageera hab maamuuska loo soo dhaweeyay madaxweynaha ayaa dadka aad uga falceliyeen waxaana soo dhaweeyay ciidamada dharka madow ee loogu talagalay inay soo dhaweeyaan diblomaasiyiinta safaaradaha halka madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dhaweyn jireen ciidamada dhar buluuga ee loogu talagalay inay soo dhaweeyaan madaxda caalamka arrintan ayaa ku noqonaysa wajiga xukuumadda cusub ee Xasan Sheikh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Barre ayaa sameeyay magacaabis Mohamed Abu Bakr Subayr ayaa loo magacaabay xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dad ay ka mid yihiin Cali Cabdi Awaare Kamaal Guutaale Dr. Axmed Nuur Maxamed Cabdi iyo Dr. Hodan Cusmaan ayaa loo magacaabay sidoo kale xilal wariyaha rugcadaaga ee Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa loo magacaabay afhayeenka ahna agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha caasimada wadankaasi iyo Denmark ee Copenhagen oo sanadkan qaadatay meesha ugu amniga badan adduunka ayaa ka dhacday shalay dhacdo aad u xanuun badan meel lagu dukaamaysto u dhow aeroboortka caasimada Copenhagen ayaa waxaa lagu dilay 3 qof ninka falkan geystay ayaa lagu sheegay inuu ahaa wiil 22 jir oo reer Denmark arrintan ayaa dawladda Denmark ay ku tilmaamtay argagixiso daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee warkeena ciidamada dawladda Ingiriiska ayaa sheegay in laga jabsaday bartooda YouTube-ka iyo Twitter-ka ciidamada dawladda Ingiriiska ayaa arrintani ku eedeeyay wadanka Ruushka waxaa faraheeni ka baxay akoonkeeni Twitter-ka iyo YouTube-ka waxaana si degdeg ugu soo celin doonaa mar dhow arrintan waxaan uga shakisanahay inay ka dambeeyeen sirdoonka Ruushku daawadayaal waa naga intaas wixii warar iyo wacaalad nooga barateen fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar si ay noogu noqoto dhiirigelin mahadsanidin